بسم الله الرحمن الرحيم نينكان waa Saciid Cabdilaahi Qayaad oo idiin soo tabinaya wuxuu idiin soo tabinayaa crypto kale maanta waxaan ka hadalnay cryptada fundamentalkayga ama waxa ay ku saabsan tahay ama ma aragtay waxa ay mustaqbalka hiigsanayso waxaan soo sheegnay in blockchain wax la yiraahdo leedahay in blockchain-ku warka waxa weeyaan wax maxaa la yiraahdaa horaan uga soo hadalnay waa systemka ma garanaysaa cryptadu waxaan la yiraahdaa waa systemka ay ku shaqeyso sababtoo ah company-gu blockchain wax la yiraahdo leeyahay marka blockchain-nada ayaa la kala leh marka bitcoin oo kale waxay leedahay waa blockchain oo la yiraahdo layer 1 blockchain tusaale ahaan in bitcoin haddaan saan nidhaahno bitcoin waa number 1 haddaan bitcoin markaa aan coin market cap aan hoos u socono bitcoin waxa ay tahay halkan hoostan ka arkaynaa inka bitcoin waa maxay bitcoin waa decentralized halkaas haddaad ila aragtaan decentralized cryptocurrency original described waxa iminka adduunka la isku dhaafaya waxa weeyaan centralized iyo decentralized labada weey marka waxay la timid lacagtan cryptocurrency la yiraahdo decentralized wax la yiraahdo decentralized waa maxay waa waxayna cidna xukumin waa wuxuna baan ilaa baan ayna ku dhaxaynayn oo ayna cid xukumin magarate marka waxa la decentralized ama decentralization laakiin waxay ka soo horjeedaa wax la yiraahdo centralization ama centralized waxay ka dhigantahay lacagtu baan ilaa baan bay martaa account ilaa account baanan baa jira marka wasaan maalintii la soo sheegnay oo aan soo ka soo hadalay oo la nidaamka Swift-ga la yiraahdo iyay doonayaan in ay bedelaan lacagta cryptocurrency-ga oo waxa weeye maanta hadaad lacag dirsato lacagta aad dirsanaysid baanka mar hadaad ka dirto baanka ilaa baanka kale inta ay tagayso tusaale ahaan baan ku yaala London baad ka soo dirtay waxaad u socotaa baan ma garanaysaa in loo soo dirayo for example banki ku yaala Boorama oo kale ama Hargeysa oo kale ama Muqdisho oo kale marka waxa laga yaabaa inay soo qaadato dhowr cusub way qaadanaysaa because Dubai way inay soo martaa way inay baanan badan soo martaa laakiin lacagtan cryptada la yiraahdo waxa weeyaan hadaad lacagtaada crypto ku iibsato oo crypto qofka ugu soo dirto oo qofkii uu haysto ama Binance account ama uu haysto ma garanaysaa maxaa la yiraahdaa exchange-yadan ama markaas haddii uu haysto lacagta exchange-yada oo Binance ka la yiraahdo ayaa ugu fiican iminka Afrika tusaale ahaan baan ka soo qaaday yacni adoo Boorama jooga soo qaad baan leeyahay moogta ama Hargeysa jooga ama Muqdisho jooga whatever the case may be sidoo doonto yacni xaalha ahaadee meesha doonto joog marka exchange-yada ma garanaysaa support gareeya ee ka trade gareeya cryptada haddii aad haysato oo lacag crypto qof ku soo diro qofkaasi marka isla daqiiqada waad helaysaa adigana waad sii iibinaysaa cryptadii markaas lacagtaadi saas ayaad ku helaysaa saas ay marka ku kala fiican yihiin taasi waa ta kale labaad aan rabo inaan sheegay waxa weeyeen in sideed haddii aad cryptad sidee u kala sareysa crypto laftigeeda ayaa kala sareysa moogta haddii aan imka tagno wax la yiraahdo coin market cap ama ma garanaysaa coin market cap waa app-kan waxa la yiraahdaa coin market cap kaas way halkuu ku qoran yahay waa inaan meelaha idiga raadiyo ama garanaysaa ama hoosta aan soo dhigiba coin market cap ayaa la yiraahdaa coin market cap waxa weeyaan waa Binance ba iskala shirkadda la yiraahdo waxa weeyaan lacaguhu isay u kala sareeyaan cryptadu iyo ku tusaya imika tusaale ahaan bitcoin baa number 1 ah ethereum lacag la yiraahdo number 2 labadaasi markaa waa lacagtii ugu horeysay weligeed la soo saaro oo crypto ahayd bitcoin ethereum-na waxa weeyaan waa lacag 15 la soo saaray laakiin number 2 ay qabsatay USDT-dani waa lacag oo dollarku backup gareeyo oo ma garanaysaa dollar ahaan stable coin baa la yiraahdaa BNB-dana Binance kuwa la yiraahdo ayaa iskale ka shirkadda Solana waa Solana company kala isku xigeen 1 iyo 2 iyo 3 waxayna isku xigeen sida ay u kala market cap badan yihiin market cap waxa la yiraahdaa lacagta ay haysato shirkadu oo yacni ma garanaysaa in tusaale ahaan Solana oo kala hadaan yiraahdo Solana shirkadda Solana
lacagteedan ay ma garanaysaa waa maanta waa $107 £107 waxayna lacag ahaan ku fadhidaa maxaa la dhahdaa Solano 740 bilyan iyo 85 milyan ayay ku fadhidaa macnu marka waa maxay waxa weeyaan marasa lacagtan Solana waxa weeyaan gebigeegu total supply-geedu ama lacagtu inta ay tahay gebigeegu waxa weeyaan 547.91 milyan weeyaan intaas baa marka loo qaybinaya 740 bilyan iyo 85 milyan marka waxay noqonaysaa $107 pound ayay noqonaysaa marka maadaama lacagtan markay biirtaba waxa biiraya lacagtan markay biirtaba in haday Solana maanta $107 pound haday £150 haday gaadho market cap-kan wuu biiraya saas ay noqonaysaa marka lacag walba qiimaheegu inta ay lacagtu la eg tahay 547 iyo 91 milyan iyo madaragtay maxaa la dhahaa 547.91 milyan iyo loo qaybinaya mar walba lacagtan market cap-ka la yiraahdo marka si u kala sareeyaan waxaad ka eegan kartaa app-kan la yiraahdo coin market cap iyo la yiraahdo app-kan marka wuxuu leeyahay madaragtay hadaan imka portfolio-giisa tago ama community-giisa magaciisa meel aan niga helo waxyaalo badan buu soo bandhigaa ma ogtahay app-kani haddaan sanada coin market cap ama waxaad ka helaysaanba muxuu ahaa Play Store-ka tusaale ahaan waa kan Play Store baad ka heli kartaan waxaad oranaysaa coin market cap coin waa sidaya coin market cap waa kaas waa kaa ugu sareeya waa kaana buluuga weeyaan marka anigu wii download gareysay waan inay tusayaba de open baa odhanaysaa marka haddaan saa waa open waa ka inaguna soo download gareysanaysaa kaasa lacagaa laga eegtaa laakiin waxba lagama iibsan karo laakiin imka haddaan eega SRB oo kala taabto tusaale ahaan hoos maan u soconayaa marka information-ka maan helayaa laakiin waxba kama iibsan karayo laakiin information-kaada kan ka helaysaa waxaa kale oo jira app-kan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Purple waxaa crypto Purple baa la yiraahdaa waa kaaga ku qoran crypto Purple wuxuu sheegaa kolba suuqu siduu yahay boqolka ugu hor halka hoos ma aragtan 1 ilaa iyo 100 waa taaban kartaa 1 ilaa 1000 buu ku joogaa ilaa iyo 1000 crypto ayuu ku tusaya tusaale ahaan ma garanaysaa halkaan baa taabanaysaa lacagta rabtid baa ku qoraysaa imka haddaan idhaahdo quantity oo kale lacag leedhaa saasaan taabanaya marka qiimeygii wuxuu oo dhan buu kuu sheegaya saas ayaad ula soconaysaan ma garanaysaa haddii ilaahay idhaahdo intaasina waa muhiim meesha laga helo iyo waxa ay kaga duwan tahay lacagaha kale inaad ogaataan aad ayaan ii salaamay waana marka kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ilaahay yaaba keenaysid waxaas oo maalmaha waxa nima soo siinaaba ما لما وصل سيبش معنويته